Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Waa idin salaamaya khayrta soo dhawaada. Kusoo dhawaada introduction ama hordhaca crypto trading course. Koorsadan buuxdo oo aan ku baranayno sida suuqan kriptada khaasatan qaybta tradingka u shaqeeyo. Hadday noqon lahayd qaabkii loo akhrin lahaa jaartiga, loo falanqeyn lahaa qiimaha, iyo markaas qaabkii noo noqon lahaa crypto trader oo go'aan adag leh, go'aankiisna caqli ku saleysan. Waxaa meeshan caawa ku faaqidi doonaa kooraskan waxa aad ku baran doontid iyo inta modul uu ka kooban yahay, modul walbana casharadiisa, cashar walbo ama modul walbo markaa dhammaysid waxa markaas adiga lagaa rabo. Table of contactska ama qeybaha markaas uu ka kooban yahay koorsadan waa 7 modul. Modulka ugu horeeya waxaan ku baran doonaa ama modulkeena koowaad crypto market fundamentals. Halka modulkeena labaad aan ku baran doonaa ama chapterkeena labaad waxa la yiraahdo signing up for trading. Modulkeena saddexaad waxaan ku baran doonaa ama chapterkeena saddexaad trading basicska ama markaas heerarka bilowga ah ee tradingka. Modulkeena afraad intaan ku guda jirno koorskan aan ku baran doono waxa waaye chapterkan intuu socdo ciwaankiisu waa technical analysis ama taxliilinta falanqaynta farsamo. Modulka shanaad waxa waaye waxa la yiraahdo fundamental analysis. Modulkeena lixaad ama chapterkeena lixaad ee koorskan waxaan ku baranaynaa waxa la yiraahdo trading ama risk management and physiology. Halka modulka u dambeeya ee aan ku baranayna modulka toddobaad ama chapterka toddobaad uu yahay advancing trading strategies. Koorskan wuxuu ka caawin doonaa saa hor u sheegay sidii suuqan kriptada uu u shaqeynayo, sidoo kalena loo akhriyo jaartiga, loo falanqeeyo qiimaha, sidoo kalena markaas noqdo trader ku shaqeeyo forecasting not predicting. Kala saar ereyada forecasting iyo predicting. Okay. Kutubkeena koowaad ama chapterkeena koowaad ama modulkeena koowaad ayaan kaga hadlayno crypto market fundamentalska. Modulkan koowaad waxaa ku baran doontaa aasaaska suuqan kriptada, waxaana ku tusayaa sida crypto exchanges ay u shaqeeyaan, maxay kala yihiin waxa la yiraahdo centralized exchange iyo decentralized exchange. Sidoo kale qaabkii aad u fahmi lahayd ama aad u fahmi karto sida ugu fudud trading pairska sida BTC USDT ama BTC ku jibaaran USDT ama ETH ku lamaanan BTC lamaana lacageedka ayaan sidoo kale ku qaadan doonaa modulkan. Sidoo kale waxaa baran doontaa waxa ay yihiin market capitalization waxa la dhaho, trading volume waxa la dhaho, liquidity waxa la dhaho. Intaas ayaa ku baran doontaa kuwaasoo marka laga hadlayo suuqan ama maxay ahayd dhaqaaqa suuqa marka laga hadlayo laf dhabar weyn u ah. Ugu dambeyn waxaan ku sharxi doonaa waxa la yiraahdo order book-ga khaasatan qaybta bids iyo askiska sida loo fahmo waxay yihiin iyo qaabka u shaqeeyaan. Sidoo kale waxyaabaha ku baran doona waxaa kamid ah noocyada wallet ama types of crypto wallet-ka, hadday noqon lahayd hot wallet-ka iyo hadday noqon lahayd markaas cold wallet-ka. Markaad modulkan dhameyso ama chapter 1 markaad dhameyso waxaa si buuxda u fahmi doontaa halka tradingka markaas uu ka bilaamayo iyo suuqa kriptada marka la dhaho tradingka qaabka uu u dhaqmo ayaad ku fahmi doontaa markii aad dhameysid modulkan casharadiisa. Chapterkeena labaad ama modulkeena saddexaad ama kutubkeena labaad, modulkan ama modul 2 waa meesha aad ku diyaarin doonto safarkaaga tradingka ama halka uu ka bilaaban doono waxa la yiraahdo your trading journal. Waxaan ku bari doonaa hadduu Ilaahay idmo sida loo doorto markaas the right exchange, hadday noqon lahayd Binance, Coinbase, Kraken iyo exchange-yada kale la midka ah waxyaabaha ku kala xiran lahayn waad ku baran doontaa. Sida loo maro KYC ama verification-ka, sida loo sameeyo crypto wallet-ka oo ammaanka ah. Sidoo kale waxaa ku baran doontaa sida loo ilaaliyo hantidaada hadday noqon lahayd markaas social security-ga, 2FA-ga, fiscal awareness-ga iyo ilaalinta markaas private keys-ka. Hadduu Ilaahay idmo modulkan markaad dhameysid
waxaa awoodin doontaa inaad si ammaan ah markaas u furato, u isticmaasho, uguna kalsoonaato akoonkaaga tradingka markaas hadday noqon lahayd wallet iyo hadday noqon lahayd exchange labadaba. Waxa ku xiga wuxuu noqon doonaa modulkeena saddexaad. Modulkan saddexaad waxaa ku qaadan doona waxa la yidhahdo trading basicska ama heerarka bilowga ah ee tradingka. Modulkan waa halka uu maxay ahaydo safarkaaga ka bilaaban doono, waxaana baran doontaa farqiga u dhexeeya investment vs trading ama maalgashi iyo ganacsi waxa la kala yiraahdo ama farqiga u dhexeeyo. Waxaadna fahmi doontaa hadduu ilaahay ku idmaayo spot tradingka, futures ama perpetual tradingka siday u kala shaqeeyaan. Waxaana ku tusinayaa haddii ilaahay idmo sida loo sameeyo long and short positionska, sidoo kalena loo isticmaalo marketka ama tables of orderka market limit, marketka hadday noqon lahayd, limitka hadday noqon lahayd, stop orderska iyo waxyaabaha kale ee la midka ah. Intaan modulkan ku guda jirno sidoo kale waxaa ku baran doontaa sida loo akhriyo candlestick chartiga, kuwaasoo ah luuqadda ama ereyadaas terminology-ga ku hoos duugan ee traderska u isticmaalaan si ay u fahmaan dhaqaaqa suuqa meesha markaas uu wajahaysan doono. Markaad dhammaysid markaa modulkan waxaa heli doontaa fahamka asaasiga ah ee tradingka markaas ay ku dhisan yihiin qodobo la asteeyay. I hope si fiican loo fahmay module 3 waxa ku baranayno iyo hadafkiisa. Modulkeena xiga waa module 4 ama chapter 4 ama cutubka afraad aan dhaho. Wuxuu ka hadli doonaa waxa la yiraahdo taxliilinta falanqaynta farsamo ama technical analysis. Modulkan waxaan dhihi karaa aniga ahaan waa wadnaha tradingka marka la joogo, waayo waxaa ku baran doonaa sida loo akhriyo price chartska hadduu ilaahay ku idmaayo, lineska, bariska iyo candlestick intaba. Waxaad ku fahmi doontaa trendka suuqa sida up trend hadduu yahay suuqa, down trend hadduu yahay iyo range marketka. Waxaa kaloo ku baran doontaa support iyo resistancega, zoonanka markaas ee supportka ku ah iyo zoonanka resistancega ku ah, iyo qaababka u muhiimsan ee markaas sida head and shoulderka, triangleska iyo breakoutska. Kadib modulka intaan ku guda jirno waxaan u gudbin doonaa indicatorska ama markaas halbeegyaasha ugu muhiimsan sida RSI MACD iyo moving average, Bollinger Band iyo kuwa kula lamid ah oo aan kasoo qaadan doono kuwa ugu muhiimsan. Waxaadna baran doontaa sida la isugu daro indicatorska si loo sameeyo confirmation iyo confluence. Modulka markuu dhamaado marka waxaa awood u yeelan doontaa asigana inaad akhrido suuqa sida professional trader adigoo markaas rajeynaya price-ka ama qiimaha falcelinta ama wixii markaas uu ku siiyo oo ku saleyn doono jihada markaas uu aadi doono. Modulkeena xiga wuxuu noqon doonaa module 5 ama chapterka shanaad. Chapterkan waxaa ku baran doontaa sida loo falanqeeyo mashruucyada kriptada si qoto dheer. Waxaana ku sharxi doonaa hadduu ilaahay idmo sida loo akhriyo white paperska, loo fahmo technomicska, supply modelskii iyo ownership distributionkii hadday noqon lahayd. Waxaa sidoo kale ku baran doontaa sida loo qiimeeyo kooxda markaas ama tiimka mashruuca, communityga hadday noqon lahayd, iyo ilaha wararka anta suuqa markaas ka jirta sidee u saameeyaan qiimaha. Waxyaabahaas idil baa ku baran doontaa hadduu ilaahay idmo. Modulkan sidoo kale markaa dhamaysidna waxaa awoodi doontaa biidhnillah inaa go'aansato mashruuc kasta inuu yahay mid dhab ah ama in mid markaas been abuur ah oo markaas suuqa lagu khaldaayo. Modulka saddexaad ama chapterka saddexaad wuxuu noqon doonaa chapter aan uga hadlayno waxa la yiraahdo risk management ama maareynta khatarta and physiology iyo dareenka ama caadifada qofka inuu maareeyo. Modulkan waa mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan. Waxaad ku baran doontaa sida loogu dhiso ama markaas loo dhigo stop losseska ama khasaaraha markaas loo xakameeyo, faa'iidadaada loogu dabaqo markaas levelada raadinaysid. Sidoo kale loo qorsheeyo cabirka position sizingka waxa la yiraahdo. Sidoo kale loo maareeyo FOMO ah hore usoo sharaxno la yiraahdo fear of missing out, and FUD oo aan hore usoo sheegnay ayadana cabsida iyo hubanti la'aanta suuqa markaas ka jirto qaabka u maareyn lahayd markii falalka noocaas aan la kulantay. Waxaa kaloo ku baran doontaa modulkan
waxa la yiraahdo la tacaalida khasaaraha ama dealing with losses. Sidoo kalena waxaa ku baran doontaa sida loo qoro trading journalka si aad ugu baratid khaladaadkaaga cashir ama self review aad isku samaysid meeshaa ka qaldan tahay meesha kale. biidnillah modulka markuu dhammaado ama ardaygu uu dhammaysto wuxuu noqon doonaa trader aan dhihi karo markaas waa traderada ugu xasiloon, ugu nidaamka adag, ugu fahamka fiican, sidoo kalena fahmi doono inuu yahay khasaaraha qayb ka mida guushiisa. modulka nooga xigo waa modul 7 ahna modulka ugu dambeeyo. modulkan wuxuu ka hadli doonaa waxa la yidhaahdo advanced trading strategies ama heerarka trading advancedka iyo istaraatiijiyadaha la isticmaalo. modulkan ugu dambeeya waa halka aad ka noqon doonto trader buuxa, trader farta ka xiran, waxaana ku baran doontaa xeelado sarsare sida scalping nooca degdega tradingka faa'iidadoonka iyagoo la raadinayo dhaqsiyaha ku jiro, swing tradingka waxa la yiraahdo tradingka muddada la heeyo, and trend following iyo traderka raaci doono jihada suuqa. waxaa kaloo ku baran doontaa fursadaha arbitrage opportunitieska, isticmaalka trading botiska ama automationka, on-chain analysiska ama inside gudaha chainka waxa ka dhici doona ama blockchainka waxa ka dhex soco si aad u ogaatid dhaqaaqa whaleska waxay samaynayaan. ugu dambeynna waxaad fahmi doontaa hadduu ilaahay idmo sida loo isticmaalo leverage iyo derivativeska weliba si xirfadaysan adigoo markaas khatar gelin lacagtaada. markaad koorsadaan dhamayso waxaa yeelan doontaa aqoon iyo faham buuxo oo kaa dhigaya trader markaas madax bannaan, qorshe leh, xirfad sare leh, ku kalsoon wixii markaas uu soo analyse gareeyay. aad iyo aad u mahadsantihiin sida quruxda badan ee aad la socotaan introductionka ama qaybta maxay ahaydo hordhaca kooraskan waxa aan ku qaadan doono safarkaaga hadduu ilaahay idmo meeshaan uu ka bilaaban doonaa. kooraskanna waxaan dhihi karaa waa kooras furo oo ah fahamka suuqan kriptada weliba khaasatan qaybta tradingka marka la dhaho. waa haddii aad sabri yeelato, barato oo wax kasto cashir kastoo aad daawatona ficil u bedesho waxaad noqon doontaa mid ka mid ah tradersyada guuleystay hadduu ilaahay idmo. baro oo falanqee si aad faa'iido u samaysid. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.